بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan rabnaa inaan halkan uga hadalno ummadda Soomaaliyeedna aan uga digno khatarta ay korontadu leedahay gaar ahaan qaybta hay'ga. Sidaad ogtihiinba korontadu waa dhinac markii loo fiiriyo manfac ay leedahay oo lagama maarmo, dhinaca kalena khatar bay leedahay. waxaan rabnaa marka inaan si gaar ah uga digno dadka guryaha dhisanaya iyo dadka guryaha dhisaya inay iska ilaaliyaan khatarta korontada qaybta hay'ga ah. Sidaad ogtihiinba waxaa dhulka looga qaaday kor loo geeyay, guryahana looga durjiyay oo aan darbiyadooda loogu xirin inay leedahay khatar oo aan loo dhawaa karin. Marka waxaan rabnaa inaan u sheegno inay iska ilaaliyaan khatartaas oo kuwa dhismaha gelaya oo dhismaha ka shaqeynaya iyo dadka loo dhisayo labaduba ay ka taxadaraan. Dadka gaar ahaan dhisaya oo aan aqoon iyo xirfad midna u lahayn korontada marka ay guryaha ka shaqeynayaan biraha ay qaadayaan, birtaas markay taabato inay u keenayso dhimasho iyo dhaawac halisa. Sidoo kale waxaan rabnaa shirkadaha telefoonada iyo internetka, kuwa biyaha, dadka bulaacadaha qodaya, sidoo kale dhulka ayay martaa qaybtaas oo kale oo iyadana dhulka loogu talagalay in la mariyo khatarteedana leh. iyadana waxaa la rabaa inay iska ilaaliyaan. Calaamaday leedahay, calaamadaaba markay arkaan inay joojiyaan waxa ay qodayaan kadibna ay xiriir la sameeyaan cidda shaqada ku leh si ay ugala taliso khatartaas. sidaas oo kale waxaan rabnaa dadka guryaha dhisanaya inay u dirsadaan dadka korontada u gelinaya guryahooda waaweyn inay dad professional aqoon koronto leh ay u dirsadaan. ugu dambeyntii waxaan rabnaa inaan niraahno korontadu waa khatar nooc kastoo ay tahay, hadday high voltage tahay, hadday low voltage tahay, labaduba khatar ay keenayaan. dadka guryaha dhaadheer dhisanaya ee ka daba tegay hay'ga saaran baalayaasha dhaadheer aad aragtaan in laga fogeeyay guryihiina laga fogeeyay, wadadiina laga fogeeyay. sababta looga fogeeyay waa khatarta ay leedahay. mar kale waxaan rabnaa inaan niraahno ka digtoonaada dadka guryaha dhisaya, kuwa sidoo kale qodaya dhulka oo cagafta ku qodaya ama gacanta ku qodaya. waxa ay noqdaanba digniin ayaa saaran iyadana. digniintaas in marka ay arkaan inay ka gudbaan oo dhinac kale ka maraan ayna la soo xiriiraan shirkadda nambarkeeda gaaban 333.